السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkani waa hoyga dhiirane English Learning Funnies qaybtiisa YouTube-ka. Haddaba luuqadda Ingiriisiga ku baro si fudud adoo naqla soconay barnaamijyada kala duwan aan daily usoo dhigno barteena YouTube-ka sida conversational practice, wada sheekaysi, mowduucyo iyo barnaamijyo kala duwan oo luuqadda Ingiriisiga lagu barto. Haddaba subscribe noo saar haddii aad hore noogu saarneyd qalbiga ka ogsooni Allah ku sharfo. sidoo kale waxaan ka codsanayaa inaad share-ta iyo like-ta aad la dhacdo si uu fiidiyogani dad badan u gaadho isla markaana ka faa'iideysta. waa anigoo Cabdisaaq Muuse Axmeda Cabdisaaq Dhiirane. Allah ku sharfo. insha Allah maanta waxaynu bilaaban doonaa topic about the badness of movies. mowduuc ku saabsan filmaanta xunxun. topic about the badness of movies. mowduuc ku saabsan filmaanta xunxun. sidaynu ognahay filmaantu mar walba waxay magaranaysa ay relate leeyihiin waxyaalaha xunxun daawashadooda. sidoo kale insha Allah waxaynu ku qaadan doonaa kelmado kamid ah tobigeenan filmaanta disadvantage-kooga iyo faa'iido daradooda insha Allah. waayahay aan bilowno topic about the badness of movies. mowduuc ku saabsan filmaanta xunxun. waayahay movies filmaantu are starting waxay ka bilaabmaan place of vice meel xun. movies filmaantu are starting waxay ka bilaabmaan place of vice meel xun because maxaa yeelay kissing dhunkashadu, killing dilitaanku, suicide ismiidaamintu, nakedness qaawanaantu, deadly dhimashadu, weapons hubku, and bad custom iyo dhaqamada xunxun. are all seen dhammaantood waxa lagu arkaa in movies filmaanta. wuxuu ku leeyahay filmaantu waxay ka bilaabmaan meel xun. movies are starting place of vice. filmaantu waxay ka bilaabmaan meel xun because maxaa yeelay kissing dhunkashadu, killing dilitaanku, suicide ismiidaamintu, nakedness qaawanaanta, needly dhimashadu, weapons hubka, and bad custom iyo dhaqamada xunxun are all seen in movies. dhammaantood waxa lagu arkaa filmaanta. waayahay today's movies filmaanta maantu weakened waxay daciifiyeen our culture dhaqankeenii which kaasoo is greatly based kaasoo aad ugu tiirsanaa our religion diinteena. yani wuxuu ku leeyahay filmaanta maanta waxay daciifsiiyeen dhaqankeenii aynu magaranaysaa ku dhisaynay diinta, which kaasoo is greatly based our religion kaasoo aad ugu tiirsanaa diinteena. because maxaa yeelay they are lacking in good manners. waxay yareeyeen in good manners dhaqanadii wanaagsanaa. today's movies filmaanta maantu are become waxay noqdeen the only way wadada keliyaate which leads taasoo ku hagta the people dadka into feel shaydaanka ku hagta. yani wuxuu ku leeyahay filmaanta maantu waxay noqdeen wadada keliyaate dadka ku hagta into to feel magarasa shaydaanka and vice iyo xumaanta. Today's movies filmaanta maantu
are become waxay noqdeen the only way wadada kaliyaatay which leads taasoo ku hagaysa amba ku hagta the people dadka into feel shaydaanka and vice iyo xumaanta waayahay it is silly waxa xun that weakening mind person qofkii maskaxda magaranaysa aan ka horumarsanayn isla markaana aan mature ka ahayn rules u raaca that filmaantaas yani wuxuu kale it silly waa duqnimo that weakening mind person qofkii maskaxda amba aan qaan gaadhin amba maskaxdiisu aanay korin rules u raacaya that movies filmaanta are behavior building soo magaranaysa ku dayana isla markaana ku dhisaya qaabka noloshiisa tusaale ahaan haddii filimku uu ahaa mid magaranaysa meel laga boodayo waxyaalahaas inuu is yiraahdo adiguna waxa tahay actorkii isla markaana ku dabadaydo uu hadhowna sida aakhirka ku dhinto yani wuxuu ku leeyahay it's silly waxa laga xumaada amba it's silly waxa duqnima that weakening person qofkii magaranaysa aan horumarsanayn amba maskaxdiisu ay hoos yarayd rules u raacaya that movies filmaantaas are behavior habdhaqankooga building isagoo ku dayanaya but laakiin on opposite side dhinaca kale movies filmaantu are behavior treatment waa dhaqan magaranaysa dhaawac amba dhaqankeena ayuu dhaawacaya are behavior treatment dhaqankeena ayuu dhaawacaya waayahay nevertheless si kasta ha ahaatee according marka laga eegayo quraankeena amba muslimiinta quraankooga were excluded laga rabo going to bad place in la tago meelaha magaranaysa xun in that case ka mooyaane muslimiintu have no access looma ogola hash movies filmaanta xun looma ogola wuxuu ku leeyahay nafadala si kasta ahaatee according marka laga eegayo quraanka muslimiinta were excluded marka laga reebo going to bad place inay tagaan meelaha xun mooyaan in that case xaalada mooyaane muslimiintu have no access looma ogola hash movies filmaanta xun if they do fear Allah's anger hadday ka baqanayaan cadhada Ilaahay because maxaa yeelay Allah Ilaahay did not permit to fabricate that in a sameeyantaas because maxaa yeelay Allah did not permit Ilaahay umu ogolaan to fabricate in a sameeyan that task frequently inta badan the bad people dadka xun who also don't remember an xasuusnayn Allah Ilaahay frequently inta badan the bad people dadka xun who also don't remember an xasuusnayn Allah Ilaahay and the day of resurrection iyo maalinta qiyaame are people waa dadka drop out of life nolosha ka dhaca yani wuxuu leeyahay dadka inta badan aan Ilaahay xasuusnayn iyo magaranaysa maalinta qiyaame waa dadka nolosha inta badan ka dhaca wuxuu ku leeyahay frequently inta badan the bad people dadka xun who kuwaasoo don't remember an xasuusnayn Allah Ilaahay and the day of resurrection iyo maalinta qiyaame are people waa dadka drop out of life nolosha ka dhaca waayahay be aware ka feejignow iska ilaali of watching movies filmaanta daawashadooda with vice taasoo ay xumaan la socoto to avoid sidaad uga fogaato Allah's hell Ilaahay cadaabtiisa aan annoy iyo cadhadiisaba wuxuu ku leeyahay be aware iska ilaali watching
movies filmaanta daawashadooda with vice kuway xumaantu la socoto to avoid sidaad uga fogaato Allah's hel ilaahay cadaabtiisa aan anoya cadhadiisaba to reach siduu gaadho great prosperous barwaaqo from Allah ilaahay halkiisa ka timid yani wuxuu ku leeyahay ilaahay waxaad raali gelinaysaa markaad ka fogaato xumaantoo dhan to reach siduu gaadho great prosperous barwaaqo from Allah xagga ilaahay ka timid inshallah subscribe noo sar haddii aad halkan soo gaadhay waa aniga Abdulsalam Muuse Axmed Abdulsadhiirane inshallah waxaan isku kulmi doonaa qaybta xigta inshallah